حسبيجي أمتيو عدلي قتبيو إلا على أركون كتيريو حسبيجي أمتيو عدلي قتبيو إلا على أركون كتيريو حسبيجي أمبا قادماني يقول أقول توتي اعتراف كسيدو urur siyaasadeedka Hillaac oo kamid ah ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa maanta 3 xafiis oo cusub ka furtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gaar ahaan xaafadaha Ceelgooni, Cali Xuseen iyo Hodan Qaylo, Cabdiraxmaan Maxamuud Xasan, Cabdirashiid Caalin Maxamuud oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee ururka Hillaac iyo gudoomiyaha ururka Hillaac ee gobolka Togdheer Faarax Xasan Abiyan iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka ururkaasi ee gobolka Togdheer ayaa xafiisyadaasi cusub xariga ka jaray iyagoo bulshada taabacsan ururka Hillaac la wadaagay inay maalinta doorashada codbixinta ay ugu ridaan ururka Hillaac oo ku jira kaalinta 7aad ee ururada siyaasadda Soomaaliland ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka Hillaac oo fariimo kala duwan la wadaagay taageerayaasha ururkaasi ee xafiisyada cusub xariga looga jaray maanta waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan xafiiskan xariga ka jarayna waa xafiiska xaafadda Ceelgooni weeyaan waxa weeye xafiiskan waa xafiisyada waaweyn ee gobolka Togdheer looga baahnaa in urur ka furto saaka waxaan bilaabaynaa hadii la ka dhigo ololihii xariga jaridda xafiisyada ee gobolka Togdheer bilaabaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xubnaha qiimaha iyo qadarinta leh ee intii sida wanaagsan uga shaqeynayay xaafadan ee si wacan noo soo dhaweeyay ee waxaan ku dadaalka iyo kartida faraha badan ku jiray amin gaamin ergeed gambe Soomaaliya kuma mahada ururkan insha Allah tacaala waxaan ku rajaynaynaa inuu xisbiyada Soomaaliland saddexda ka mid noqono ka koobaad ay noqono ayna kala baad saxad midna ayna noqon rajo weyn ku qabnaa taageerayaasha insha Allah tacaala dhamaantood waxaan ugu baaqayaa halkan xisbigan waxa weeye aynu ku midownay Hillaac waxa weeye rajadii Soomaaliland iyo mustaqbalkii Soomaaliland iyo horumarkii Soomaaliland iyo hadafkii hanaankii Soomaaliland ayaa soo bixitaankiisa oo dhan ku xiran yahay marka quruxda Soomaaliland ayuu la marwan ka yahay sida quruxda Soomaaliland la marwan yahay ayuu xisbiyada Soomaaliland la marwan yahay insha Allah tacaala hadii la ka dhigo marka insha Allah tacaala waxaan aad iyo aad idinku rajaynayaa guul iyo gobonimo iyo hadii la ka dhigo 13 November iyo codkeen iyo dhamaanteen loo gar taaganahay xisbiga Allahu Akbar xaafadan joogna maanta waa Hodan barwaaqo saa gudoomiyaha waa Hodan barwaaqo qaylada ma jirto waa Hodan barwaaqo weeye saa u sheegay marka xisbiga Hillaac iyo barwaaqada iskaashanaya marka horena Hillaac isaga horeeya roobka daa barwaaqa ku dambaysa sida awgeed saasi xaafadan magaca maanta kula baxay xaafisyo badan xaray ka soo jaray intaana sugayseen oo noo taagnaydeen aad iyo aad ugu mahadsantihiin waxa weeye taageerayaasha dhamaantiin urur siyaasadeedka Hillaac waxaan leeyahay xisbiga aqoonta kartida karaamada iyo waxa weeye iyo jamhuuriyadda iyo jiritaanka Soomaaliland iyo quruxda Soomaaliland buu qayb weyn ka yahay waxa weeye waa xisbi darafa waa ogtihiin inaan maanta soo saaro oo codka garab taagno oo saddex dhadhaar Soomaaliland sinaadaan ayaa maanta heer Burco loo baahan yahay Burco caalanka kor u qaada ururkana kor u qaada codkiina kor u qaada bulshada ku nool degmadan Cali Xuseen insha Allah waa kii waxidiin dhisay xisbiga la yiraahdo Hillaac waanu Hillaacaya markaasuu onkadaya markaasuu daaya markaasuu xareeta ka abisan sidaas ayaad calaamadiisu waa 7 sano waa 7 maalmood waa 7 badood 7 weeye sidaas calaamada lagu siinaysaa insha Allah bimaka waa furitaankii xafiiska Ceelgooni waxa farxad weyn saakaya inaan ka soo qayb galo furitaanka xafiiskan xaafadda Cali Xuseen waa Hillaacna waa Cali Xuseen waxaan rajaynayaa insha Allah Abdillaah Kariim codkii uu ku soo baxayay inuu halka ka heli doono Cali Xuseen inuu ka heli doono ururka Hillaac waxa weeyaan maanta waxaan fariin u dirayaa awdal waxaan leeyahay Burco waa diyaar Togdheer waa diyaar barbarka ka baxday waa bakayl qaleen awdalay ururka haddaydan idinku soo saarin anagu dhankayga waa soo saarinaa idinku weeyaan baashaasi xaqiina ka ciirin waxaad ogtihiin 7 cisho ayaa doorashadii ka hadhay maanta bishu waa 6 7 cisho doorashadii ka hadhay Hillaacna number 7 la calaamadinaya Hillaac maxaa la calaamadinaya 7 qof walba kaarkaaga soo dhawayso goobtaad ka codaynaysaa kaarkaaga dhabarkiisa ay ku taalaa haddii alla ka dhigo bisinkana waad u qabanaysaa ducaduna waa meesheeda waxaad ogaataan
Somaliland intii ay jirtay saddex inan oo walaalo ah un bay isu dhiibdhiibayay saddex walaalo bay isu dhiibdhiibayay maxaynu doonaynaa inaanu ku soo biirino Somaliland la wada leeyahay deegaan la wada leeyahay dal la wada leeyahay iyo udubkii nabadda hillaac waa udubkii nabadda insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in hillaac soo baxo hillaac bulsho aqooneed baa ku kulantay bulsho aqooneed baa wada garasho aqooneed baa hagaysa waxay aqoonsan yihiin oo garawsan yihiin meesha dhibtu ay dalka kaga jirto halka in wax laga qabto u baahan halka in la toosiyo u baahan aqoonta bini aadamka hagtee ururkii nabadiya aqoonta siday kartidiya karaamada la hillaac aan damin baynu haynaa furitaanka xafiiskan ceelgooni oo runtii noqon doona goobaha ugu muhiimsan ee uu ka hawlgalo ururka hillaac hormoodna ka noqon doona insha Allah guushiisa sidaynu wada ogsoonahay dee waqtigu way iskurayaayo waqti nooma hadhin waxaynu maraynaa maalinba maalinta ka dambaysa waxaynu ku soo dhawaanaynaa dee maalintii doorashada ee 13 November ayaynu ku sii dhawaanaynaa marka ugu horeysa horta waxaan halkan idinka farayaa dhammaan taageerayaasha guud ee ururka hillaac ee jooga gobolada dalka ee kala duwan mid waliba inuu u diyaar garoobo doorashada 13 November oo uu kaadhkiisana soo dhaweysto diyaarna uu u noqdo goobtii uu ka codeynayay sidii uu ku gaari lahaa xubin kasta oo kamid ah ururka hillaac ama codeeye kasta oo kamid ah ururka hillaac meesha uu ka codeynaya waxay ugu qoran tahay kaadhkiisa xagga dambe ayay ugu qoran tahay oo uu ka eeganaya Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco